inay walaaltinimada xilkasnimada iyo taariikhda kaashadaan una noqdaan jidkii aan isla jeexnay ee 2 maalmood ka hor saxiixa is-afgaradka sharci darrada ah intaan la saxiixin. jidkaas waa kii walaaltinimada iyo garawshiyaha oo weli inoo furan. annaan aaminsanahay in uu badbaado u yahay jiritaankeenna, ummadnimadeenna iyo soo celinta karaamadeenna iyo sharafta dadkeenna. haddii aan wada jirayno iyo haddii aan kala tegayno waa hawl u gaar ah oo qusaysa oo keliya dadka Soomaaliyeed, nagama jirto meelo kale iyo ajnabi midna. guddoonka sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin, waxaan la socdaa in ajandayaal muhiim ah ay hor yaallaan kalfadhigan, kuwaas oo ay ka mid yihiin sharciyada la xiriira dimuqraadiyeynta dalka sida kuwii xisbiyada iyo kuwa doorashooyinka, sidoo kale hay-adaha maamulka doorashooyinka, ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo kuwa garsoorka. walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin, muddooyinkii la soo dhaafay dalkeennu wuxuu soo maray xaalado muujinayo soo kabasho dhanka maamul dhiska iyo dimuqraadiyeynta. waxaan ku sii siqaynaa in muwaadinka Soomaaliyeed helo fursad uu ku doorto ama lagu doorto isaga. waxaan filayaa doorashooyinkii dadbanaay in aanay ahayn kuwa loo xiise qabo maanta. waxaan wada xasuusanaa in 2012kii baarlamaanka ay soo xuleen odayaal dhaqameedyadeennii 135 ahaa oo badankooda deganaa hoteello ku yaalla caasimadda. in lagu soo doorto waxaan 2016 waxaan u gudubnay in xildhibaanadeena lagu soo doorto dowlad goboleedyada. tiro ka badan 14,000 oo qof ayaa codaysay. 2022kii in ku dhow 30,000 ayaa codaysay mar kale. maanta waxaana laga sugayaa inaan dalka u horseedno doorasho toos ah oo qof iyo cod ah oo guud ahaan shacabka qaybihiisa kala duwan siisa fursad ay ku codeeyaan iyagoo xor ah. waana siinaynaa shacabkeenna fursaddaas insha Allah. waxaa kale oo iyadana ahmiyad weyn leh sii wadidda cutubyada ka dhiman dhammaystirka dastuurka si dalku uga baxo hubinti la'aanta ee dastuuriga ah. mudanayaal iyo marwooyin, baryahan dagaallo sokeeyo ahli ah ayaa ku soo noqnoqday deegaanada qaarkood. waa qayb ka mid ah qorshaha cadowga iyo argagixisada iska horkeenista shacabkeenna si aan uga sii jeesanno ka xoreynta dalka khawaarijta. taasina ilaahay idankiis ma dhacayso. dadkeenna waa nabadaynaynaa, khawaarijta dagaalkeedana waan wadaynaa haddii alla yidhaa. dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxay sameeyeen dadaallo lagu kala dhex gelayo laguna nabadaynayo deegaanada colaaduhu ka jiraan. waxaan bogaadinayaa dowlad goboleedyada ku howlan daminta colaadaha ka jira deegaanada qaarkood. waana waajib dhammaanteen ina saaran inaan u guntanno joojinta colaadahaas. waxaa sidoo kale aan bogaadinayaa siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka, culamaa'u diinka iyo ururada bulshada ee iyagana ku howlan daminta colaadahaas. waxa aan ku soo gunaanadayaa hadal jeedintayda kalfadhiga 5aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in annagoo alla kaashanayno oo aan ka mashquulaynin inaan wada aragno Soomaaliya oo ku guulaysatay xoreynta deegaanada weli ku jira gacanta khawaarijta, dejinta shuruucda aan ku horumarinayno dalka, dhammaystirka hay-adaha qaran ee muhiimka u ah dowlad dhiska iyo ballaarinta adeegyada bulshada sida ballaarinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ee gaaray da'dii waxbarashada. mudanayaal iyo marwooyin, xubnaha
gole ee sharafta leh kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa inoo furan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad iyo aad ayuu mahadsan. xildhibaanada sharafta leh madaxweynaha iyo tiimkiisa fasaxayna marka